gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID ee degmada Lughaya Siciid Cabdilaahi Kaahin Shaqale iyo xidhiidhiyaha gobolada galbeedka ee xisbigaasi UCID oo uu waramayay telefishinka caalamiga ee Somali Cable ayaa ka hadlay guud ahaan xaaladda abaareed ee ka taagan gobolka Awdal ayaa iyaguna geesta kale baaqudra xukuumadda iyo cid kasta oo gargaar u fidanaysa dadkaasi waxaana ay yiraahdeen waxay abaar aad iyo aad u kulul ayaa taala waxa kale kaga duwan tahay deegaanka gobolka Awdal waxay xagaagii waa kulay waa meel kulul waxay xilliga dhulku barwaaqada yahayba aad bay u kulushahay marka waxaan leenahay hay'adaha caalamiga ah inay u gurmadaan sida ugu dhaqso badan oo ay dadka u badbaadiyaan degmooyinka gobolka Awdal marka laga hadlayo degmada Lughaya waxay aad xilliga xagaaga hadii ay barwaaqo tahay meelaha ay dadku haraadka ugu dhimanayeen imika iska badbaado furahan deegaanada ay ka kooyay goboladani waxa ku dhacday masiiradii ama natural disaster abaar baa ku dhacday saameysay xoolihii deegaankii iyo dadkiiba waxaan halkan maaragtay ugu baaqayaa dadweynaha ka soo jeeda gobolada ugu horeeyaan ama cid kastoo maaragtay waxtar kartaba in dadkaasi lala soo gaaro gurmad degdeg ah oo aan maaragtay wax la sii dhowfaahayn qofkii fadhiya waa inuu sara kaco qofkii sara joogana waa inuu soo dhaqaaqo weeyi ma aha afar goodood iyo laba goodood mucaawanadu ma aha waa in cashuurtii dadka laga qaadayo waa in wax lagaga soo celiyo oo looga gurmado iyagoo marka horeba aan lahayn adeeg waxqabad oo ay ku qabeen xukuumadda dhanka kale Xuseen Cismaan Cilmi oo ka tirsan guddiga heer gobol ee xisbigaasi wadani ayaa dhankiisa dhaliilo u jeediyay xildhibaanada gobolka Awdal kaga jira labada aqal ee baarlamaanka iyo guurtida uguna baaqay inay ka qayb qaataan gurmadka abaaraha loo fidinayo dadka ku tabaalaysan gobolka Awdal nimanka golaha wakiilada u qaabilsan xildhibaanada golaha wakiilada ee gobolkan Awdal ayaa waxa aan wax aad iyadoo igu noqotay nimankii aan filaynay inay dadkooda u naxaan ee dadkooda soo indheeyaan intay shirkada ay Hargeysa ku qabteen ku dhawaaqay inay xukuumadda ka sugayaan inay xukuumaddu wax u dirto gobolkii iyada loo soo dirtay miyayna ka haboonayn inta ay xukuumadda fariinta u farayaan inay mishaarkooda bilbil ugu deeqaan dhaafayeen ay $1,000 ku deeqaan inta ay xukuumadda iyo beesha caalamka iyo gurbajoogga ay ka codsanayaan in gobolada laga soo gaaro ay abaaruhu halakeeyeen ee galbeedka Soomaaliya waa nuux kadiye telefishinka caalamiga ee Somali Cable magaalada Boorama.